waxaan ku wareejin doonaa siyaasiga da'da weyn Master Cibaar oo uga soo haajiray 350 kiiloomitir inuu ka qayb gala xafladan. Cibaar ku soo dhawow. warqaraab aniga siyaasi maahi nin ganacsadaan ay raali ahaada xaajigu ay foodeena kabtoon qof u soo haajiray oo siyaasi noqonayo ma jiriyo war hadii la sheegi lahaa waa la dhameystiray aniga luflufa iyo harasaayo haddaan ogaan lahaa magaalada inaysaan u shidantaa oo soo labisan lahaa anoo qataraan imaan lahaa marka raali ahaada waxaan rabaa kaliya taariikhda tolkan waa laga sheekeeyay caawa wax kale oo ka dhiman oo lagu dari lahaa ama laga reebi lahaa ma jirto yaan ahayn oo tor karan loo inta jooga gacanta taaga bal intaan karan lahayn waxaan rabaa caawa qash fiican inaan siiyo all of them karan la okay marka waxa waay ciidan cid daris wanaag leeyahay cid waliba gabdhahan rabaa inaan qash siiyo dumarku waa u roon yihiin marka laga faa'iideysto dad wanaagsan oo daris wanaag leh waayo oo sharaf leh laga faa'iideysto tolkan waxaan rabaa oo kale inaan idin sheego haday cuqdad qaadana sida looga saar aad u adagtaa reer tolkay si fiican isku naqaana Soomaa cuqdadaasuna ana dhibaysa maahane waxaan afka ka sheegayno waxaan aheena noo qarsan marka iyada laftigeedana lagu barto calankan maanta waxaan u asteena waxay tahay kaliya in annagana lagu ogaado ummadana ay nagu ogaato meel aan isku ognaana aan u wada guurno sidaas daraadeed waxa waay meel kasta ee adduunka ka jira maanta calankana laga xusaa 31 Oktoobar maalinteeni waaye muusiga waa noo furan yahay saacadan wixii ka dambeeya heesaha waa noo furan yihiin hal gabay oo la codsaday ayaa jira oo aad qaali u ah waxaan codsanaynaa gabagaas in la daaro inta gabagaas uu daarmaayana gudoomiyahan waxaan ku xushmeyn doonaa inuu keega noo jaro wixii intaas ka dambeeyana dhalinyarada ciyaalka xaafadda oo anagaba aan ka midnahay waxa waaye muusiga iyo dancingka fasaxatiidin waxaan u gudbaynaa keeg inaan u gudubno ka bacdina insha Allah waxa xafladiina aad furan kartiin gudoomiye waajib ka saaran hablaha horta waajib kule inay keega nala jaraan hablaha jar lahay keega meeshan ku soo dhawaadaan waana maasantii
barashaan rabaa oo aan idin bari doono dhakhtarkii labaad ay u suurto gashay dalkan South Africa inuu dhakhtarnimo uga soo baxo waxaa marti noo caawa nin 39 mursada ah la yiraahdo Dr. Mahad Ahmed Maxamed waa radiologist Dr. Ustaag tolkaaga caawa ku bartaane Johannesburg waa sigana nooga yimid inkastoo lay diyaaradiisa timid hadda soo galay marka waa fresh insha Allah la socdo dhakhtarkeena waa ogtiin dhakhtarka horeeyana Cabdi Wahaab waa baxay marka guushaasaa jirta insha Allah hay doctorka sacab labaad lagu soo dhaweeyay